laba wajiileyntu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee dawladaha islaamka lagu haayo una diidan inay dib u soo noolaadaan lugahoodana ku istaagaan oo siyaasi waliba oo hogaamiya mid ka mid ah dawladaha islaamka wuxuu u ordayaa buuriyeynta iyo waliba gaalada isagoo gargaardoon ah una adeegsanaya walaalkiisa kale ee muslimka ah oo ay macquul tahay haddii ay isla hadlaan inay waxyaabo fara badan meel isla dhigi kari lahaayeen. sidoo kale waxaa qolo waliba oo muslimiin ah ku dhex nool kuwa munaafiqiin ah oo u adeega cadowga islaamka haba ugu horeeyaan kuwaasi siyaasiyiinteena. dhab ahaantii waxay diinteena inoo sheegtay in munaafiqiintu ay leeyihiin astaamo iyaga u gaar ah sida aynu ku arki doonno muuqaalkeena maanta ee ku soo dhawaada saaxiibayaal xalqadeena 10aad ee tixanaheena ramadaanka. si gacaliyayaal inta aana gudagelin barnaamijkeena tixanaha ah ee 30 juz iyo 30 fariin waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe saartaan channelkeena. fadlan ha ilaawina inaad la garaysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina. mahadsanidin. وحو الله سبحانه وتعالى آية 67 سورة التوبة كويري المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. رق منافقين تأه إيولي ودمرك منافقات كأهي وأي إسليهين وحين أمران حمانتا إيغون الريب سمانتا waxay laabaan gacmahooda oo waxba lama baxaan waxayna iloobeen Allah subhanahu wa ta'ala markaasuu isaguna iyagii iska iloobay. dhab ahaantii munaafiqiintu waa kuwa faasiqiin ah. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu aayado badan oo quraanka ka mid ahi ku xusay astaamaha iyo waliba noocyada aadanaha isagoona inooga waramay caqiidada iyo camalka dad badan oo ay ka mid yihiin kuwii ku gaaloobay Allah subhanahu wa ta'ala. dhab ahaantii waxaad arkaysaa casrigeena dhalinyaro fara badan oo ku faanaysa inay yihiin atheist, deist ama muslim qunyar socod ah. si kolkii la yiraahdo waxaad tihiin gaalo, mushrikiin ama murtadiin aad u caroonayo una arkayo in la caayay misana la liiday erayadu macna ahaan haba isku mid ahaadaane. haddaba aayadda barnaamijkeena maanta wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala inoogu sheegay 4 astaan oo ay leeyihiin munaafiqiinta. astaanta koowaad waa inay dadka faraan xumaanta oo waxay jecel yihiin in xumaanta dhulka ku faafto dembiyaduna aad u bataan halka muuminiintu aynan iska caawinin dembiga. taas cagsigeeda waxay iska caawiyaan wanaaga iyo weliba alla ka cabsiga. astaanta labaad oo ay la gaarka yihiin munaafiqiinta waa inay reebaan wanaaga oo ma rabaan in wanaagu uu dadka dhexdooda ku fido. hadda ugu daawade maaha kaliya inaysan iyagu wanaaga samaynaynin sidoo kale waxay ka soo horjeedaan kuwa sameeya oo waxay isku dayayaan had iyo jeer inay ka hor istaagaan. sidoo kale wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay in munaafiqiintu ay riixaan agoonta ma dhiirigeliyaan quudinta masaakiinta kolkii ay salaadaha dukanayaanna waxay dukadaan iyagoo mahsan amaba isla hal idinka sheego. astaanta saddexaad ee munaafiqiinta waa inay baqiili yihiin oo ay gacmo xiran yihiin maadaama ay aad u jecel yihiin dunida damac maalkan uu qalbigooda biyo dhigtay. sidaa darteed waxay had iyo jeer aruursadaan maalka iyagoona ka fogaada inay jidka alla ku bixiyaan. astaanta afaraad waa inay Allah subhanahu wa ta'ala ilaabeen oo waxay dunida ugu nool yihiin sida inuusan Allah subhanahu wa ta'ala jirin oo kale mana adeecaan amarka Ilaahay. maadaama ay sidaas yeeleenna Allah subhanahu wa ta'alana iyagii waa uu iska iloobay. si kale haddii loo dhigo ma eegi doono iyaga maalinta qiyaamo una naxariisan maayo waxaana la gelin doonaa salka hoose ee naarta. halka muuminiinta rag iyo dumarba uu midkoodba midka kale uu ilaaliyo una faro wanaag samaynta iyagoona iska reeba xumaanta ugana salaadaha
waxna ka bixiya Alle subxaanahu wa tacaala wax uu ku galaday. Hubaal Alle subxaanahu wa tacaala waa u naxariistaa mu'miniinta, had iyo jeerna garabkooda iyo weliba gaashaankooda ayuu noqdaa. dhab ahaantii haddii aynu nahay muslimiin, markaynu aqrinayno kitaabka Alle waa inaan ku dul fikirnaa aayadaha ka hadlaya gaalada, mushrikiinta, munaafiqiinta, kirishtaanka iyo weliba yuhuudda, oo waa inaan si gaara u fiirinaa astaamaha lagu tilmaamay iyaga, deedna aan eegnaa nafteenna oo aan isweydiinaa tolow astaamahan miyaan ka fognahay mise waxaa laga helayaa nafteenna. haddii aynu iska helno astaamahaasna, waa inaan isla markiiba u degdegnaa inaan isbeddel dhab ah la nimaano oo aan Alle subxaanahu wa tacaala si dhaba isugu dhiibnaa. culimmada islaamkana waxay munaafiqiintu u qaybiyeen 2 kooxood, qolo afka muslimiinka ah oo aanan qalbiga Alle subxaanahu wa tacaala ka rumaysnayn, waxayna had iyo jeer afka ka yidhaahdaan waxaan rumaynaa Alle subxaanahu wa tacaala iyo weliba maalinta aakhiro. si kolkii ay la kulmaan shayaadiinta waxay ku yidhaahdaan adinka ayaan idinla jirnaa, oo iyaga waan ku jeesjeesayna oo keliya. kooxda labaadna waa kuwo muslimiin ah balse aanan Allah u hoggaansamin camal ahaan, waana munaafaqada ugu badan ee laga helo dadkeena, oo si gaara waa inaan midaan nafaheena uga fiirinaa. oo xitaa qaar ka mid ah saxaabadii nebiga ayaa suubanaheena weydiin jiray, miyaa noqday munaafiq rasuulkii Allow? tanina waxay noo caddaynaysaa inay qasab tahay inaan xisaabino nafafkeena ka hor inta aanan inala xisaabinin. nebigeenna sallallahu calayhi wasallamna wuxuu xadiis ku yidhi, calaamadaha qofka munaafiqa lagu yaqaano waa 3 calaamadood. markii uu hadlayo been ayuu sheegaa, markii uu ballan qaado ma oofiyo, sidoo kalena markii wax loo dhiibo waa uu qiyaamaa. riwaayad kalena waxay ku daraysaa, xitaa hadduu soomo, tukado, ama uu yidhaahdo waxaan ahay muslim, si laga helo astaamahaasi, qofkaasi waa munaafiq. bal 3daasi astaamood haddii aan ku miisaamno madaxdeena ama bulshada aan la nool nahay, waxaa inoo soo baxaya in la wada munaafiqadaysan yahay, balse heerka munaafaqada oo kaliya lagu kala daran yahay. dhab ahaantii kolka aynu fiirino siyaasiyiinta caalamka oo dhan, dal weliba ay joogaan iyo diin weliba oo haystaanba, waxay ka sameyn yihiin beenta iyo weliba munaafaqadaynta. intaa waxaa sii dheer in siyaasiyiintuba ay aamineen in sida kaliya oo xil ku heli karaan ay tahay inay been sheegaan. siyaasi weliba siyaasiga uu ka munaafaqad badan yahayna waa uu ka saameyn badan yahay siyaasiga kale. taasina waxaa ka dhashaa in la walaaleeyo siyaasadda iyo weliba munaafaqadda, waana sababta aad loola yaabo kolkii la arkaa sheekh u hanqaltaagayo inuu noqdaa siyaasi, waayo dadku waxay u arkaan inay yihiin 2 shay oo aanan isqaadanayn. cilmibaaris lagu daabacay degalka political behavior ayaa lagu sheegay in codbixiyaasha ay aad ugu wareeraan hadallada ay soo jeediyaan siyaasiyiinta, iyadoona ay isaga qasanto siyaasiga ay codkooda sii lahaayeen, se keliya ay kala saari karaan kolka uu siyaasiga hadlayo inuu naftiisa ka hadlayo ama uu mucaaradkiisa ka hadlayo. tanina waxay sababtaa in badiba ay dadku ku doortaan hadal macaanida iyo weliba turufaynta siyaasiga, xitaa haddii uu siyaasigaasi yahay munaafiq weyn. daraasad kale oo lagu sameeyey jaamacadda Nebraska Lincoln oo ah mid ka mid ah jaamacadaha Mareykanka ayaa soo jeedisay in siyaasiyiintu ay diidi karaan qaladaadka ayna ka fogaan karaan beenta. hase ahaatee taageerayaasha ayaa doorbida ilaalinta awoodda siyaasadeed iyo weliba heerka kooxda marka loo eego qirashada qaladaadka hogaamiyaha, oo taageerayaashu ma daneeyaan beenaha uu sheegayo siyaasiga, se waxay fiiriyaan awoodda xisbiga iyo weliba heerka uu ka joogo siyaasadda dalka. tanina waxay dhiirigelinaysaa inuu siyaasiga uu been sii sheego ilaa uu noqdaa qof aan daacad ahayn, waayo wuxuu ogyahay in dadweynuhu aynan qiimeynayn daacaddarradiisa. waxaana intaasi sii dheer in cilmibaarisada qaarkood ayba caddeeyeen haddii uu siyaasigu qirto been ama munaafaqad uu hore u sameeyey, waxay u badan tahay inuu lumin doono caanimadii iyo weliba kalsoonidii gacankurimiska ahayd ee uu bulshada ku dhex lahaa. si dhib weyn kama dhaxlayo haddii uu dafiro misena uu inkiro qaladkii uu hore u galay, xitaa haddii gadaal laga ogaado. sidoo kale baraha bulshada waxa uu ka mid yahay baalasha ay ku biibto munaafaqadda iyo weliba beenta siyaasiyiinta. taageerayaashooduna waxay sii xoojiyaan inay sii faafiyaan been kasta oo u adeegaysaa qadiyadooda. haddaba gacaliyayaal,
haddii aad rabtaan inaad aragtaan munaafaqad socotaa misana nool, bal fiiriya siyaasiyiinta caalamka amaba kuweenaba deedna saara miisaanka iyo weliba astaamaha uu nabigeena sallallahu calayhi wasallam ku tilmaamay oo ay ugu horeyso beenta, ballanka baxa iyo weliba qiyaamaynta amaba musuqmaasuqa xoolaha bulshada. ugu dambayna waxaa nafteyda iyo tiinaba ugu dardaarmayaa gacaliyayaal inaan aad ugu fogaano astaamaha munaafiqiinta oo aan aad u xisaabino nafafkeena ka hor intuusan Rabbi subxaanahu wa tacaala ina xisaabinin. ugu dambayna gacaliyayaal, Allaha qaadirka ah ee iska leh labada daaroodba hayna waafajiyo xaqa, hana inagu dilo diinta islaamka, dalka iyo dadkana aynu u duceyno saaxiibayaal inta aynu ku guda jirno maalmaha barakeysan ee bisha Ramadaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.